بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku guda jirnaa wali jabtarkii ciwaankiisu ahaa molecular biology techniques waxaan ka dooranay maadaama techniques-ka ay aad u farbadan yihiin kuwa ugu muhiimsan shan ayaanu dooranay waxaan hore uga soo hadalnay isolation and purification of nucleic acids sidii loo heli lahaa loogana soo saari lahaa cells-ka nucleic acids oo DNA iyo RNA oo pure form ah lecture-kan waxaan uga hadli doonaa maanta polymerase chain reaction ama PCR waxay noo xigi doonaa gel electrophoresis blotting techniques iyo DNA sequencing methods haddaba aan ku hormarno PCR ama polymerase chain reaction marka ugu horeysa muxuu yahay PCR marka PCR waxa la isweydiiyaa ma machine ba mise waa technique haddaba machine waxa lagu magacaabaa PCR machine ama thermocycler machine waa machine ku shaqeeya temperature-da sare loona design gareeyay machine-kan habkan loo yaqaano technique amplification and detection balod marka PCR marka aanu doonayno inaan machine ka dhigno waxaan leenahay PCR machine ama thermocycler ama hadaa si guud PCR ama polymerase chain reaction sida magaca uu sheegayo polymerase waa enzyme chain waa silsilad oo kale wax isku daba xiga reaction waa falgalada isku xiga ee uu ka qayb qaato enzyme-ka loo yaqaan polymerase hadaba waa laboratory technique loogu talagalay amplification iyo detection of nucleic acid molecules marka lababa waa loo isticmaalaa PCR for amplification iyo PCR for detection labadaba waa loo isticmaalaa amplification waxa weeyaan haddii aad haysato in yar oo ka mid ah DNA iyo RNA haddaad doonayso inaad badiso marka PCR machine-ku ku badinaya marka in this sense waxaan sameynay amplification oo aan badinay sidoo kale haddaan doonayno inaan ogaano nooca DNA-ga iyo nooca RNA-ga inaan marka detection marka this is called detection haddaba labadaba waa loo isticmaali karaa marka for amplification and detection marka maxaan leenahay marka PCR waxaan ula jeednaa technique marka PCR waxa weeyaan waa laboratory technique for amplification and detection of RNA or DNA molecules labadooda waxa la isku yiraahdaa nucleic acids marka technique-kan waxa la soo saaray 1984 waxa la soo saaray saynisyahanka weyn ee u dhashay dalka Mareykanka ee loo yaqaan Carl Mullis wuxuuna ku qaatay abaalmarinta loo yaqaan Nobel Prize ayuu ku qaatay waayo waxa uu ka mid yahay molecular biology techniques ugu cajiibsan ayuu ka mid yahay marka requirements-ka ama components-ka PCR haddaba PCR-ka markii la doonayo technique-kan in lagu shaqeeyo maxaa loo baahan yahay muxuu ka kooban yahay intaba waa dhihi kartaa maxaan u baahannahay target DNA-gan doonayno inaan badino inaan helnaa amaba DNA-gan doonayno inaan detection ku sameyno noociisa inaan ogaano waa inaan helnaa number 1 number 2 primaries haddaad maqasho primary waxaa la yidhaahdaa synthesized RNA nucleotides marka nucleotides adenosine guanosine cytidine thymidine phosphate kuwaas loo yaqaan nucleotides marka waa short nucleotide sequences yar oo la diyaariyay oo la sameeyay kuwaasoo awood u leh inay dhinac ku qabtaan ama ay ku xirmaan target DNA-ga la doonay in detection-ka lagu sameeyo ama amplification-ka lagu sameeyo
marka waxayna u noqonayaan barbilow meeshii enzyme-kii loo yaqaan polymerase uu ka samayn lahaa synthesis marka waana area loo yaqaan 5N marka short nucleotide kan ku xirmaya 5N-diga ayaa loo yaqaan primer marka primer at least 2 primer maadaama DNA ka kooban yahay 2 strand marka at least 2 primer waa inaan helnaa sidoo kale waxaan u baahanahay maadaama DNA cusub aan samaynin horena waan uga soo hadalnay and in vivo DNA replication ayaan ka soo hadalnay DNA replication ka dhacaya inside the cell ka soo hadalnay oo qaabku u dhacay waxay ahayd semi conservative target DNA-ga doonay inuu bato ayaa kala baxay separation uu sameeyay markuu kala baxana primaries ayaa 5N-diga labada strand ku xirmay kadibna DNA polymerase ayaa sameeyay synthesis-ka oo ku xirxirayay isagoo isticmaalaya ribonucleotide phosphates ama deoxyribonucleotide phosphates isagoo isticmaalaya meesha thiamine adenine buu ku xiraya guanine cytosine buu ku xiraya cytosine guanine buu ku xiraya guanine cytosine buu ku xiraya qaab noocaas oo kale u sameeyay marka waa inaan helnaa 4 deoxyribonucleotide phosphate deoxyadenosine phosphate deoxyguanosine phosphate deoxythymidine phosphate iyo deoxycytidine phosphate waa inaan helnaa 4 waxaan u baahnaa enzyme-kii wax samayn lahaa ee loo yaqaan polymerase enzyme waa inaan helnaa waliba maadaama machine-kan PCR uu ku shaqeynay temperature aad iyo aad u sareeya waa inaan helnaa marka enzyme awood u leh inuu iska xajiyo ama u dul qaadan kara iska caabin kara temperature-ka sare sidaa darteed baa waxaa la doortay bacteria ku nool biyaha kulul ee loo yaqaano therma aquaticus bacteria in enzyme-ka laga soo saaro enzyme-kaasoo loogu magac daray bacteria therma aquaticus polymerase waa polymerase-kii laga soo saaray bacteria-dii ku noolay biyaha kulul marka afartan baa ugu muhiimsan target requirements ama components waa target DNA primaries 4 deoxynucleotide phosphates iyo tag polymerase sidoo kale waxaa loo baahan yahay PCR2 waan u baahanahay PCR bufferna waan u baahanahay PCR machine waan u baahanahay marka processki baan u gelinaa habkii uu shaqeynay ama principles mabdigu ku shaqeynay saddex process ayuu maraa ama saddex mabda buu ku shaqeeyaa taa doontaba leh tan koowaad waxa weeye denaturation waxa weeyaan labada strand ee DNA-ga inay kala baxaan renaturation baa jira maanilin waa primaries-ka inay ku xirmaan 5N-diga sidaan iminka arkaynaba and third waxa weeyaan synthesis ama extension waa DNA polymerase inuu markaa dhammaystiraa strand habku uu sameeyay waa hab loo yaqaan semi conservative haddaba sawirkan soo eeg marka aan dhammaan markaan soo qaato PCR2 ama aband of tube oo aan ku shubo target DNA-gi primaries-ki nucleotides-ki polymerase-ki iyo buffer-kiba ee machine-ka aan geliyo machine-ka aan istaaro temperature-ka machine-ka isla markiiba sar uu kacayaa ilaa uu ka gaaro 95 degrees Celsius ilaa 100 inta u dhaxaysa marka xilligaas temperature-ku aad u sareeya awadi labada strand way kala go'ayaan oo way kala furmayaan waayo labada strand waxa u dhaxeeya hydrogen bomb kaasoo adjacent and opposite nucleotides ay isku haystaan adenine thiamine buu ku haystaa 2 hydrogen bomb guanine cytosine buu ku haystaa 3 hydrogen bomb marka labada strand baa kala baxaya waayahay machine-ka temperature-kiisa hoos u soo degaya ilaa uu ka yimaado 45 ilaa 50 u dhaxaysa xilligaas primaries-ka ayaa ku xirmaya qaybtii 5N-D waayo kan wuxuu socdaa waa 5 to 3 kanna waa 3 to 5 meeshana marka 5 ah marka synthesis-ka markasta 5 ka soo bilaabanaya marka primer-ka ku xirmaya 5N-D-ga waxa loo yaqaan annealing haddana temperature-ka sar u kacaya ilaa iyo 70 inta iyo 75 inta u dhaxaysa kadibna polymerase enzyme-ka isagoo adeegsanaya nucleotides-ki uu sameeyay uu dhammaystiraya
marka from 5 prime to 3 prime from 5 prime to 3 prime uu dhamaystiraya marka halka DNA waxa uu noqday in one cycle wuxuu noqday 2 DNA so kan uu soo koobiyaa requirementska ama PCR componentski waa isku mid waa kun DNA sample ama target DNA at least 2 primaries for deoxynucleotide phosphates and tag polymerase PCR buffer ama mixing buffer iyo PCR tube ama bond of tube iyo thermocycler marka processki one cycle uu tusaale ku siinaya ama principleski temperature markuu 95 gaaro denaturation baa dhacay labada strand baa kala baxay temperature cross buu soo tagay 50 buu imanaya primaries baa ku xirmaya labada strand anigii baa loo yaqaana temperature haduu sawir uu ka cayaylay 70 ilaa 75 inta uu gaaraya kadibna polymerase ku dhamaystiraya synthesis soo wadaagsanaya for nucleotide phosphates waayahay in one cycle halka DNA wuxuu noqdaa laba cycle ka labaad labada DNA waxay noqdaan afar cycle ka saddexaad afarta DNA waxay noqdaan 8 cycle ka afraad 8 DNA waxay noqdaan 16 cycle ka shanaad 16 ka B DNA waxay noqdaan 32 means mar kastaba numberka double buu sameeyaa arintaas waxa loo yaqaanaa exponential baa loo yaqaanaa and way ku kala duwan yihiin PCR wuxuuna u dhaxeeyaa inta cycle uu sameyn karo 20 ilaa iyo 40 cycle here waxaa nooga muuqda 30 cycle in uu markaa soo saaray in ka badan billion of DNA waayahay applicationska maxaa loo adeegsadaa maxaa loo isticmaalaa PCR-ka isku soo duuduubo waxaa loo isticmaalaa in clinical diagnosis in wax lagu sheego oo maxaa lagu sheegayaa tusaale ahaan oo kale inherited disease xanuunada la kala dhaxlo genetics waxaad ku soo dhigateen xanuuno badan oo la kala dhaxlo haddaad fikirto in waxaad soo xasuusanaysaa xanuunkii la oran jiray Tay Sachs disease Huntington chorea cystic fibrosis albinism schisis Marfan syndrome xanuuno fara badan ayaad soo xanuunsanaysaa Gaucher's disease baa kamid ah xanuun kasta oo inherited disease uu keeno specifically single gene disorder waa lagu ogaan karaa single gene disorder waxa uu la jeedaa marka uu DNA-ga sequences-ka gene kamid ah markuu error ku yimaado waxa kale oo lagu sheegaari karaa tusaale ahaan oo kale viral disease AIDS oo maanta halis ah hepatitis B iyo hepatitis C oo kale measleska rubella polio-ga iyo waxa maanta caalamka imika ka taagan loo yaqaan COVID-19 waa lagu sheegaa bacterial disease xanuuno badan baa lagu sheegaa TB-da ama tuberculosis-ka xanuunkan loo yaqaan taacunka ama breega ee keenta bacteria loo yaqaan Yersinia-da iyo xanuuno badan oo bacteria ay keento sida tusaale ahaan oo kale hadii loo baahdo muxuu ahaa pertussis-ka oo kale diphtheria-da oo kale xanuuno badan baa lagu baari karaa PCR for diagnosis of cancer variety of cancers kala duwan waa lagu sheegaari karaa isku soo duubo inta waxa loo yaqaan qodobkaas PCR in clinical diagnosis sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa PCR in successive determination of impurities oo ku jirka ilmaha ku jira ma laba ma dhadigba walba sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa in forensic medicine haddii tusaale ahaan oo kale meel loo soo dhaco oo wax la dhaco amaba qof la dilo ama la kufsado dumarka amaba paternalhood waalidnimo ilmaha la isku qabsaday intaba waa lagu xaqiijin karaa waxaan ognahay in tusaale ahaan oo kale qofka bini'aadamka surfaceskiisa sare faro madax ka soo bilow ilaa ciribta hoose mar kastaba skinka wuxuu ka mid yahay ama skin cells waxay ka mid yihiin
cellska loo yaqaano continuous cellska waxaa loo yaqaanaa cellska life spankooda aadka u yar yahay oo mar kastaba replacement lagu sameeyo sidaa darteed baa laga heli karaa gacmaha madaxa iyo jirka oogada inta saraba waxaa laga heli karaa dead cells sidaa darteed qof hadduu maalinta u soo dhaco isagoo koofiyad xiran koofiyada ka tago ama kobihiisi meesha kaga tago ama albaabkii gacanta uu ku qabsaday meelaha uu taabtay oo dhan oo surfacekiisa ay traction-ka la sameeyeen waxaa laga heli karaa dead cells baa laga heli karaa taasoo ay fududahay in DNA-ga detection lagu sameeyo gabar baa la kufsaday markii la kufsaday jirkeedii meelihii laga taabtay ama galmada loo geystay semenka haddii lasoo qaado DNA-ga qofka waa laga heli karaa nin baa nin dilay tusaale ahaan torrey buu ku dilay ama gacantuu dhuuntaba kaga qabtayba tusaale ahaan torreydaa uu qabtay ama gacantiisa uu ku qabtay uu ku dilayba meesha uu taabtay waxaa laga heli karaa dead cellskii baa laga heli karaa sidoo kale ilmaa la isku qabsaday yaa dhalay anigaa dhalay iyo anigaa dhalay tusaale ahaan dee ilmaha DNA baa laga soo qaadaya ciddii sheeganaysana DNA baa laga qaadaya kadibna parental rule arrinta noocaas waxaa loo yaqaanaa PCR forensic medicine maxkamadaha aad iyo aad u isticmaala haddaba PCR-ka noocyadiisu aad bay u fara badan yihiin waa tubareeyano laakiin qaybo yaroo kamid ah baan soo qaadanayna afarta ugu muhiimsan ayaan soo qaadan doonaa types of PCR there are so many types of PCR but here are a four of them most commonly used types waxaa ugu caansan afartan tusaale ahaan nested PCR on-call PCR real-time PCR reverse transcriptase PCR way fara badan yihiin multiplex PCR baa jiri kara colony PCR baa jiri kara iyo kuwa kaloo badan markaa mid kasta oo ka mid ah nooc kastaba hab qaasa si qaasa buu u shaqeeyaa property u qaasana wuu leeyahay markaa waxa wanaagsan inaan markaa si qaasa in each team inaan uga hadlo lectureka maanta ee aan uga hadlayay PCR intaasuu ku egyahay wa shukran lakum aad baad mahadsantihiin